iyadoo lagu guda jiro toddobaadka xuska maalinta cudurka sankarowga oo sanad walba dunida laga xuso 14 Noofembar si loo xoojiyo wacyiga ku saabsan sida sokorta badan ay u saameyn karto caafimaadka qofka ayaa jaamacadda CITYCOT oo kaashanaysa xarunta caafimaadka ee caafi clinical diabetes center waxa ay qabatay campaign iyo munaasibad ku saabsan xuska maalinta cudurka sankarowga adduunka si bulshada loogu wacyigeliyo khatarta cudurka macaanka loona kordhiyo wacyi ku saabsan kahortaga iyo la dagaalanta cudurka sonkorta. barnaamijkan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka ka degmada Boosaaso hormuudka kuliyadda caafimaadka jaamacadda CITYCOT maamulka xarunta daaweynta cudurka sonkorta ee caafi iyo ardayda kuliyadda caafimaadka jaamacadda CITYCOT. dhammaan mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasibadda xuska maalinta cudurka macaanka oo goobta ka hadlay ayaa jaamacadda ku amaanay dadaalka ay ku bixisay wacyigelinta bulshada ee kor u qaadista aqoonta caafimaadka gaar ahaan cudurka macaanka. dhanka kale ardayda jaamacadda CITYCOT oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay kuliyadda caafimaadka ayaa campaign ku maray goobo kala duwan oo ka mid ah suuqa magaalada Boosaaso iyaguna halkaas ku qabtay wacyigelin la xiriirta xanuunka macaanka astaamaha lagu garan karo iyo sida la iskaga ilaalin karo. waxa ay sidoo kale ardaydu bulshada u sameeyeen baaritaano free ah oo looga eegayay cudurka sonkorta. jaamacadda CITYCOT waxay mar walba diiradda saaraysaa wacyigelinta bulshada kor u qaadista aqoonta iyo fahamka bulshada ee ku saabsan arrimaha caafimaadka.